kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeena toddobaadkana waxaan ku eegi doonaa haweenka kalida ku ah korinta caruurtooda oo ku soo badanaya suuqyada ganacsiga ee Beledweyne. In ka badan 200 oo haween ah oo wax ka baranaya iskuul farsamada gacanta ah oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay Baydhabo, iyo warbixin aan idinkaga hayno gabdho ka soo baxay jaamacadaha dalka oo kaalin ka qaadanaya hal abuurada ganacsi ee ka jira Muqdisho. aan ku bilownay ganacsiyada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa si aad ah sanadihii la soo dhaafay ugu soo kordhaya haweenka kaalinta ka qaadanaya kobaca ganacsiga ee magaalada. Intooda badan haweenkan ayaa ah kuwa kali ku ah korinta caruurtooda, waxaana ay tani u arkaan fursad weyn oo mustaqbalka ubadkooda wax ku tari karaan, iyaga oo hadda fursado shaqo u abuuraya dhalinyaro muddo baagamuunda ahaa kadib markii ay kordheen ama uu kobcay ganacsigooda. Shukri Baryare oo Beledweyne ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin ka hadlaysa. haweenka kalida ku ah korinta caruurtooda ayaa ilaa iyo 5 sano ee la soo dhaafay aad ugu soo badanayay ganacsiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, iyaga oo qayb ka qaadanayay kobaca dhaqaalaha ee magaalada. Faa'iise Cusmaan Cumar waxa ay carwo lagu iibiyay dharka ku leedahay suuqa Yoobsan ee magaalada Beledweyne tan iyo 2017 markaas oo ay u suuro gashay in ay furato goobtan ganacsi oo ay muddo fog ku taamaysay si ay u noqoto ganacsato aad looga yaqaan magaalada. Goobtan ganacsi waxa ay ka maareysaa nolosha caruurteeda oo ka kooban 7 caruur ah oo 3 ka mid ah ay dhigtaan dugsi Quraan iyo iskuul. Waxa ay sheegtay in 12 sano ka hor ay dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ee Mujamac ee magaalada Beledweyne, markaas oo aysan u suurtagelin inay sii wadato waxbarashadeeda maadaama ay qayb ka mid ah magaalada ay ka socdeen dagaalo, kadibna ay go'aansatay inay iska guursato. Faa'iise ayaa hadda rajaynaysa in ay sii ballaariso ganacsigeeda oo wax badan nolol ahaan qoyskeeda wax ka bedelay, inkastoo duruufo kala duwan oo mar ay ku dhawaatay in gabi ahaanba ay iska dhaafto ganacsiga ay soo martay 2 sano ee ugu horeysay ee goobteeda ganacsi. والله carwadan waxaan furtay adiga ilaa ay muddo 5 sano ka badan waa joogaa. Markii hore ganacsiga kulay wax kasta waxay ka bilaawdaan koow ganacsiga waxaan ka soo bilaabay meel hoose, haddana ma sha Allah alxamdulillah ilaa baa mahad iskale wuxuu ii marayaa meesha ugu fiicnaad. Wallahi xaruntan kulay aniga hooyaday meesha markii hore meeshan waxay ahayd qof asigana macnaha ganacsi ku jiro oo ganacsiga igu horeeyay ma sha Allah. marka aniga hooyaday dhig kara qabad kulay waa iska jira wadanka waa aragtay biibaxa imaanayso biibaxada wixii la gadaa waa carwo waxay ka rabtaa inay rartid waxay ka rabtaa inaa maxay ahayd biyaas aad ka maaraysid. marka ay doonayso qof dumar ah in ay ganacsi furato ama ay shaqaysato ma hesho fursadaha shaqo abuur ee wiilasha oo kale, maadaama aysan waalidku muhiimad siinin gabdhaha in ay muujiyaan kartidooda wax soo saar. waxaa jira caqabado dhowr ah oo ay la kulmaan dumarka marka ay yihiin kuwa shaqo doon ah iyo kuwa kale ee raadinaya fursadaha hal abuurada ganacsi ee jira, iyadoo ay u sii dheer tahay inaysan haysan dhaqaalihii ay ku bilaabi lahaayeen waxa ay u baahan yihiin, sida uu qabo Cabdinaasir Cilmi Rooble oo ka mid ah aqoon-yahanada reer Beledweyne. Cabdinaasir ayaa dumarka ku dhiirigeliyay in ay shaqaystaan oo ay noqdaan kuwo wax u qaban kara caruurtooda iyo naftooda. waxa uu xusay in haweenka ay kaalin weyn ka soo qaateen badbaadada qoysaska intii ay jireen dagaaladii sokeeyay ee dalka ka dhacay. waxa uu sheegay in dumarka ay ku jiraan kuwo badan oo karti ahaan la siman ragga oo ay ka go'an tahay ka dhabaynta hamigooda, isaga oo gabdhaha aqoon-yahanada ah kula taliyay in aysan khasaarin tacabkii iyo waqtigii ay soo galiyeen waxbarashada, isla markaana ay ka faa'iideystaan fursadaha ganacsi oo ay heli karaan. haweenka ganacsatada ee magaalada Beledweyne runtii wax weyn magaalada ku soo kordhiyeen kor u qaadida dhaqaalaha bilicda ganacsiyada hadda magaalada ugu fiican dumar iskalaba. waxa caqabad ku ah runtii marka koobaad gabarta ma heli karto horto fursadaha wiilku helaayo
dhanka weliba waalidka dilayraa waalidiintu inay xoogga saaraan wiilasha gabdhaha aan fursadooda la siinin gabadhu way ka shaqo badan tahay wiilka xilliyada qaar marka waxaan dhihi lahaa soo baxa kuwa aan waxbarana waxa bartaan kuwa waxbartayna ha shaqaystaan. Haweenka ku nool Beledweyne ayaa u muuqda waqtigan in ay aad ugu soo biirayaan tartanka ganacsi ee magaalada ka jira kuwaas oo ay markii hore ku badnaayeen ama kali ku ahaayeen ragga. Maryan Cabdulla Xasan waxa ay sanad ka hor heerka koobaad ee jaamacadda uga baxday magaalada Beledweyne waana hooyo haysata 2 caruur ah muddo sanado ah oo ay ku fikiraysay in ay yeelato ganacsi ay u madax bannaan tahay milkiyadiisana ay leedahay ayay sanadkan u suurto gashay in ay hirgeliso xarun ballaaran oo ay ku iibso waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan iscarfinta oo rag iyo dumar ah iyo waxyaabo kale oo la isku yiraahdo cosmetics. Waxa ay sheegtay in dhibaato xoogan oo xagga shaqada ah ay la kulantay intii ay dhiganaysay jaamacadda oo ay dhowr shaqo isaga tagtay sabab la xiriira cadaadis uga imaanaya dadkii ay u shaqaynaysay oo rag ahaa oo furitaanka ganacsigeeda ay ka caawinayeen dad ay qaraabo yihiin. Waxaa hadda u shaqeeya 3 qof oo 2 ka mid ah ay haween yihiin. Sidoo kale Maryan oo horey u ahayd xubin firfircoon oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada si gaar ah haweenka, gudoomiyaha ururka la dagaalanka iyo ka hortagga gudniinka fircooniga ah ee dumarka lagu sameeyo waxaana ay si bilaash ah mararka qaar uga qayb qaadataa in dadka laga wacyigeliyo gudniinka fircooniga ah iyo dhibaatooyinkiisa. Waxaan ku fikiray markii dambe inaan aniga aasaasto meel aniga aan u madax bannaanahay yani shakhsiyadeeda ale xilligan rabana aan furo karo xilligan rabana aan xiro karo. ugu dambeyn waxaa soo baxday inaan hirgeliyo xaqiiqatan isbedelka yani waxa kamid ah markii laga tago xaq dhaqaale iyo caqabad markii laga tago waxa ka soo dhaxbaxay yani bulshadii aan ku dhex jiray oo aan ka dhex shaqeyn jiray tusaale ahaan familka kale inta badan waqti la qaadan jiray marmarka qaar ma ahan. way mahadsan tahay wariyeena Shukri Baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay. dhinaca kale magaalada Baydhabo ee gobolka Baaci gabdhaha ku nool oo boqolaal ah waxa ay ku biireen dugsi lagu barto farsamada gacanta si ay u soo dhiciyaan masruufka qoysaskooda oo ay doonayaan in isku filnaansho ay gaarsiiyaan. dugsigan ayaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Baydhabo iyadoo la rajeynayo in magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeed la gaarsiiyo. farsamooyinka la barayo gabdhaha waxaa kamid ah cilaansaarka, harqaanka, dharkarinta, korontada oo aad u dhib badan iyo kuwa kale. fursadan waxaa loo arkaa inay kor u qaadayso kaalinta haweenka ee tartanka suuqyada looga shaqeyso farsamooyinkan oo hadda raggu ay ku badan yihiin. Saciid Maxamed Sabriye ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo. Shukri Maxamuud Xuseen oo ha kabeertay xaruntan All Women Consign bille Maarso ee sanadkan Yasoma way bayay sheegtay in ay ka dhiiratay baradow ka qaybta cilad biyowka korontada oo ay eedan adagta in gabdho iyo baradan balse ay aragaasa meelyaha ka saarada korta nolol maalmeedka markii ay dhamaysata muddo 5 bilood oo ay xaruntan walka baradaasi. Shukri way bayay helay 2 bil oo tababar oo baraatika ah oo ku saabsan sida loo niskiro fiilooyinka cilad biyowka halyowka markii jara dab qaldan. wayba iyo kumidata ardayda wala ku baradow iskuulka All Women Consign wayba iyo ertay wayba ana baraday oo aan aha ardayad baradaas korontada wayba ana baraday muddo ka 5 bilood wayba iyo tilmaantay in dad badan iyo eedan la yaabeen markii iyo saaxiibadii oo la baraday qaybtan korontada oo ka kooban 8 markii dooradan laakiin wayba ka kalsoonta in suuqa shaqada magaalada guud ahaan gobolka Baay iyo kala tartamo kuran magalka oo han kaliya ee hadda holan qobado eedeedan faraxsan anteena baradona korontado mayba ku dooraday wala wanayn haneen bandhiga mayba ka fail haytay bahalo wala yaro koronto ha baraatikeedeedan sameeyay 3 bilood qaadani baraatika mayba in guureeytay inteena barada falsamada oonay korontada ha iskuulka ada taariikhdo oonay maraasa bililamaad 5 bilood dhigday tamaantii oo bafaday inteena ka shaqeeyso intii oonay sheegad ku muuqda dadka oo aan bar ama kaleed
idee oonay walba ka halaaga intayna ka samaysado awal madi koowad ku obsooda jari koronto laakiin hadda baraday ma ku obsoodo isbedela dareemi awal laakiin wal mihirada jaran hadda hoob min mugdee ana dareem korontaha gadada caadiyan hirade Batuulo Sheekh Xuseen oo maamulka iskuulka All Women Consign ee magaalada Baydhabo oo farsamada gacanta ka baradayaan bilaanta yaway bay sheegtay in hadda walyo brahayan dufacadii lamaad oo ka kooban 120 gabdhood muddo 18 biloodna furanta xaruntan sidoo kale niyo jaran qaar horay an qalan jibi oo qaarsho isla xarunta macallimiin ku meel qaar kalena magaalada ka shaqeystaan way bay tilmaantay in daahaan iyo holoden 18 jar ilaa 27 sano jar maadaama ay heligaas hang awoodan leh qabado ku hoolan oo kale sidoo kalena iyo ku horseedayaan in bilaanta markii la hafura ciyaalsho noqdan hang nis dhikow oo dhibaatada galow yago ciyaalsho widan oo shaq abuur on noqota farsamada gacanta ee barashadii wal lacag ku qaadana Batuulo ya soma in sheegtay in farsamooyinkiyo barayaan bilaanta iyo kumidata dhar karinta harqaanka ilaansaarka korontada iyo haano kala iyadoo koorso kastana lanka tala galay in ay socoto muddo la biloode way bayaan ka baagtay bilaanta gobolka Baay in ay ku faa'iideystaan baradowga farsamada gacanta oo isbedel dhinaga nolol aan noqdo korta iyadoo qorsheeya hayta in harun noocan oo kala iyo ku furta deegaanada shalgadiisan ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya women consign may dhikadaas 120 gabdhood iyo iskoolkun dhikadaas eed gabdho walbaradayno oo meel raayis en iskoolka dhamaayano en xirfad fayla baradan waliba ka shaqaysadana jaran wallahi may ka xulnay baahada geektaal ama dhibaatada geektaal iyo 9% hooyada baahada ka dhiyaas sababtoo wali dhii korte iskoolkan dadka wala la barahay may buwaada adiyo 18 sano ilaa iyo 27 sano sababtoo uu dooranay may buwa gabdho wali dhii korte iyo mas'uuliyin qaada korna iniyo harta la kadara oo may la raayis la hafuro awlaad hal unug amal qaban marka shaqo abuur degdeg 6 bilood ka dambe wali baan ka tala galnay in shaqo abuur helaan si awlaadiyo mustaqbal shay oo ka daboolay Nimco Ali Maxamed oo 23 jir yaan wayba kumidata gabdhaha kabeeri haruntan bil saddexaad ee sanadkan iyada oo baradaas qaybta harqaanka oo walbadan isku bedeli tan iyo markii iyo kooyti haruntan wayba eedan ka faraxsanta in hadda iyo kasaasa sida lontalow garamada iyo diracyada haano kalan iyo iska day korta haddana wayba ka hamiyahayte in ya harunta All Women Consign ka noqota macallin gabdho walbarow ama ishe aan ku shaqeysata magaalada Nimca oo wili Shelenjeen School ya hooyo haysata wiil iyo gabar oo 2 sano iyo 3 sano shal jaran ya hooyadii ku aawiye jartay howlaha guriga muddadii yeel roogti oo dhan sanad iyo 2 bilood mayba baraday kuliyada oo harqaan walaahi walbadan iska bedeli mayba kamide awal waxyaabaha qarka silin tolo makasaan laakiin hadda garamada tolo koro daracyaalka tolo koro darta qaar iska day kor tolo koro darbadan oo tolo jaran oo hadda tolo koro jaran alxamdulillah walaahi waagi hor walba ma qabadaan maamuda la jikada iyo ka caawiye jari wala noqobaday male laakiin hadda alxamdulillah hadan wala iska bedeli laakiin walba tolaay ma weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. ugu dambeyntiina dhageystayaal gabdho ka baxay kulliyado kala duwan oo jaamacadaha Muqdisho ku yaala ayaa bilaabay hal abuur ganacsi oo ay ka mid yihiin in saliidda ay ka sameeyaan miraha lowska kadibna ay gasaacadiyaan waxaana intaas kadib loo iibgeeyaa suuqyada Muqdisho. sidoo kale waxaa jira in gabdhahan ay ku iibiyaan suuqyada dhijitaalka si ay u kordhiyaan macaamiisha ay leeyihiin. waxa ay rajeynayaan in ganacsigooda uu gaaro dhammaan gobolada dalka. Shukri Caabi oo la kulantay gabdhahan ayaa ka soo diyaarisay warbixintan. kooxdan haweenka oo ka kooban 7 ruux oo dhameeyay jaamacadaha qaar ee magaalada Muqdisho ku yaala ayaa sameeyay hal abuur ganacsi oo ay ku doonayaan inay ku horumariyaan naftooda iyo midda qoyskooda taa oo ah in saliidda la marsado tinta ay ka sameeyaan miraha dalagyada dalka qaarkood
kuwa oo isticmaali karaan rag iyo dumarba. Qaali Axmed oo kamid ah haweenkan oo dhameysata waxbarashadeeda jaamacadda sanadkii 2018 ayaa sheegaysa inay sameeyeen hal abuurkan kadib markii ay geliyeen tijaabooyin badan oo guuleystay sida saliid tayo leh looga soo saari lahaa miraha ka baxa dalka gaar ahaan looska, sisinta, qumbaha, dacarta iyo kuwa kale. Waxa ay tilmaamtay in iyada ahaan ay la kulantay caqabado tingo'go ah kadib isbitaallo badan oo ay tagtana aan waxba iska bedelin ayna go'aan ku gaartay sameynta saliidda miraha qaar laga sameyn karo. Markii ay ku guuleysatana ay saaxiibadeed ku wargelisay inay fursad ganacsi oo tijaabadeedu iyadoo ay sameysay iyaguna ay aqbaleen. Qaali iyo kooxdeeda ayaa bilaabay ganacsigan bishii 9aad ee sanadkii 2019 iyaga oo markii ugu horeysaba ku dhibanaa sidii ay dadka ugu qancin lahaayeen wax soo saarkooda. Waxay xustay in xitaa ay soo saaraan waxyaabo kale oo dheeraada sida iskaraabka oo haweenka iyo ragga ay u isticmaalaan wajiga oo lagu sameeyay dalka. dalabaad dalka iyo dibadda labadaba waa sameeyaa damaanadna way leedahay aad iyo aad qofka asoo u jeeda u sameynaa marmarka qaar hadda saliidan filtration u baahan tahay hadda san hadda u sameey isla hadda marka iyada macluul wasaqdeeda markaas ku qaadanaysid yani wax oo jajabka wax ku jiraan hadda isku qaadanaysa caag oo kugu shubnaa laakiin maxay sameynaa saliid qurxoon oo nadiif inay noqoto waxay qaadanaa ugu yaraan 2 saac 3 saacadood inay sugto marka qofku waa u sheegaa dadka qaar maxay ugu dhahaan waxaan ku qaadanaynaa iyadoo nadiif rabnaa dadka qaar maxay ugu dhahaan nooshiid anagoo u jeednaa rabnaa. Hal abuurkan ganacsi ay la yimaadeen haweenkan waxaa jira macaamiil badan oo ku xiran kuwaasi oo ka faa'iideysta waxyaabaha ay soo saaraan. Deeqa Ibraahim Xasan oo kamid ah haweenka macaamiisha u ah gabdhahani la yimid hal abuurkaani ganacsi ayaa sheegtay in muddo 2 sano ah ay ka iibsanaysay saliidda ay sameeyaan oo ay aad ugu qanacsan tahay tan iyo markii ay ku soo xirantay. Waxay tilmaamtay inaysan jirin waxyeelo ay kala kulantay sidoo kalena ay ka heshay faa'iido badan ayna ka caawiyeen timo go'go'ayay oo ay ka caban jirtay uu meesha ka baxay. Deeqa ayaa fariintan gaarsiisay saaxiibadeed iyo dariskeeda kuwa oo hadda macaamiil la noqday gabdhahani miraha kala duwan ee dalka ka baxa ka sameeya saliidda timaha la marsado. maasha Allah tiyadeeda aad u fiicantaa wax badan aan ka fahmay awal tin gogo ah ka cabanayay maasha Allah tinteedu ay qoxonaad way ii bixisay may dhibaato kale ma kulmin kuwa markaa baranayay gabdha ay soo sheegeen anigoo aqoon oo tin gogo ka cabanayo gabdha markay ii sheegeen 3 xabaa ka tijaabiyay macaamiil soo noqday ana gabdha badan oo dad badan oo ku soo xiray dad oo sidii camal oo tin gogo ka caban jiray ku soo xiray tigtada ku soo xiray maasha Allah waa gabdhahan wax soo saarkooda aad ugu helna maasha Allah. Arda Cabdullaahi Ciise oo iyadana kamid ah haweenka la yimid fikradani ganacsi ayaa Sooma u sheegay in maalintii ay iibiyaan ilaa iyo 650 caag oo isugu jira 1 litir qaad iyo kuwa ka yaryar ayna ku iibiyaan caaga weyn lacag dhan $10 ilaa $15. Waxay tilmaamtay inay u isticmaalaan markay soo saarayaan saliidda makiinada yaryar oo ay ku shiidaan sidoo kalena ay caagadaha saliiddaasi ay ku xardhaan magacyada dukaamada ama goobaha ganacsi ee ka iibsada saliidda ay soo saaraan. Arda ayaa xustay inay ka gudbeen caqabado ay ka mid tahayd macaamiil la'aan haysatay bilowga ganacsigooda oo ay hadda ku qasban tahay inay shaqaaleysiiso ilaa 4 haween ah oo iyagana ka caawiya inay wax ka iibiyaan macaamiisha dalabkooda oo aad u badan 2 sano ee la soo dhaafay. Waxay sheegtay in haweenku ay sameyn karaan tartan ganacsi oo xoog leh iyadoo ugu baaqday inay la yimaadaan fikrado dhaxalgal ah oo nolol ahaan ay ku hormari karaan. Arda ayaana ugu dambeyn sheegtay in rajadeedu ay tahay in ganacsigeeda uu gaaro dhammaan gobolada dalka oo ay xarumo ka furtaan Muqdisho iyo gobolada dalka maadaama hadda ay ku iibiyaan ayna ku sameeyaan guryahooda. waxaa adeegsanaa qalab yar oo guriga noo yaal ah soo iibsanay oo saliidda ah ku sameyno iyo miraha aan ka sameyno sida qumbaha looska iyo sanjabiilka dhagayaraha waa makiinad aan ka soo iibsanay suuqa si aan ugu sameyno miraha dalka si aan ugu soo saarno saliidda
waxaa ku jirna muddo 4 sano ah maasha Allah hadda macaamiil yeelanay awal markaa bilaaben iyo had isku mid manihin waxaan rajaynaynaa ganacsigeena inuu baaho oo dalka dibadiisa ilaa iyo gobolada oo ku baaho oo gaaro intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaanse dhagaystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah sidee kor loogu qaadi karaa barashada xirfadaha iyo shaqo abuurka haweenka nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacadan mahadsanidin